شيء زي كذا ولا الجامعة وسؤال هذا معلومة الويدينيس يعني حقوقي قبل أن أوصل يعني عند مشغلين عند بكية لسه لكن كرامني شرف في هواك إلهي يعني لو مصير أنا صار أنا هذا مالي بدل كتمها أنا دولنا هم مالي بدل كتمها وأنا بلشدت ولما تيجي على كلامك هواك على كلامك بشرط على كلامك عندما أنتم وبدأ كشقيان والله كذا sababtoo ah waxaa laga yaabaa logsoon tahay ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa ku sheega haweenka muhiimadda ay leeyihiin iyo guursiisa margabad guursado iyo cid wax ka dhexeyn kara xiriirka ay leeyihiin laakiin in gabadhii lagu soo koobo wax yaroo hanti ah oo ay noqoto haddee cidda ay haddaan kursi siin lahayn ciddeeda la joogtaa haddaan ka bikarinta ka imaanaysa arrintaas arrin aan caawatan makoroonka qarsan aan kule berriyaa saxayna ma ah waa arrin dhaqan ah boqolaal sano soo jirtay laakiin u baahan tahay in laga shaqeeyo oo kulli laga shaqeeyo waqti badan la geliyo muhiimad khaas la siiyo dhinac kasoo geli karaan inaan ka gelino mataqaanaa waxyaabaha lagu keeni karto yacni furfuritaankeeda anaga marka waxaan samayn karnaa barnaamijyo hadda ujeedada dadka soomaaliyeed waxaan qabnaa social media aad dadka ku xiran yihiin waxaa laga yaabaa caawa qof kastana ku jiro meelaha telefoonka isticmaali karna ku jirtaa kalirkaas khaldan inaan wax ka bedelo oo qofka aan lagu qiimeynin mataqaanaa yani waxyaabaha aan jirin aan qualitigeeda lagu qiimin marka arrintaa arrin aan isleena waa fududeyn karnaa anigoo kale iyo dowladda imaanaysa madaxweyne keligiis oo qaban karnaa laakiin prime minister iyo wasiirada ku taajeerto oo mas-uuliyiinta qadiyadda guudaa waxay tahay inaan ka wada shaqeyno collective dowladda aliilkeeda qaadata imaan doonto in barnaamijka la fududeeyo oo xaqiijiyo walaashii hadalada ka dhawaajisay iyo culayska imaan karo dhibaatooyinka haweenka lagu haayo ama lagu qiimeynayo qiimeyn lagu qiimeynayo mataqaana waxyaabahan intaan aysan munaasib u ahayn arrin social waaye inaan ka wada shaqeyno u baahannahay maaha su-aashaan ka leexana laakiin ma raba haddana wax aanan dhacaynin in la qabto waa wax horse soo socday waqti badan ku soo jirnay waqti badan nooga baahan yahay su-aalaha wariyaha ay weydiisay dhowrka bay ahaayeen qodob waxaan ka bilaabaa la xiriiro qofka markii la doorto muxuu isku bedela allah u naxariisto cabdullaahi yuusuf aan jeclahay inuu dhahay mataqaanaa kursiga ayaa waa la buy qofka ma wada oo something like that macnaha ma garanayo marka laakiin waxaan isleeyahay dhibaatada jirtaa waxay tahay siyaasadda soomaaliya waxay si qareer ugu dhisan u samaysan taasaa marka waxay keenaysaa qofku markuu institution leeyahay dalku amba waxa leeyahay ilaa kaabayaasha dalku uu leeyahay qofka qiimi ma laha qofku imaana uu baxaa wixii way soconaya anaga marka waxaa nagu dhacay mararka qaar waxaa la yidhahdaa tusaale waxaa jira la yidhahdo lasoo qaato oo laho laba madaxweyne markaad tidhaahdo mararka qaarkeen mararka qaarkood madaxweynaha maraykanka ka dhibya inaa madaxweyne soomaaliya sababto waxaa madaxweynaha ku qabaa the institution infrastructure-kii u shaqeynaya caawinayo mararka qaar waxaa la yidhahdaa tusaale waxaa loo soo qaataa madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha ugu dadkasta waa qof qubaystay ee suuliya ka soo baxay isagoo qaanuun banaanka maray iyo qof marka ka soo baxayo shukumaan qofsiyo u xirto macnaha waxaa looga jeedaa haddii aad qabto kaabiyaal haddii aad qabto advisors haddii aad qabto hay-adada dawliha oo shaqeyna madaxweynaha shaqada uu qabana waa xadidan tahay waa laga rajeyn karaa waa la gaargarin karaa asaga shaqayaa celinaayo wuxuu doona ma samayn karo dhibaatada nagu dhacda marka waxa ay tahay su-aal aad baalid ah waaye oo waqti lageli u baahan waxaa nagu dhacda waxay qofku markuu dalka madaxweyne ka noqdo wuxuu noqonayaa hanti iyo property qof leeyahay qof baa keensaday koox baa keensatay isaga meesha ku haysanayo waxaa abuurmaysa isagoo marka wuxuu kusoo ururmayaa fikirka dadka ay wataan marka bishikii uu doonaa dhuma number labo waxaa jiro institution kaabayaasha ah madaxweynaha mugsoon tahay tusaale ka soo qaban xafiiska prime minister oo shaqadiisa ay tahay saddex shay mobalis sida gudoomiye walaashay zaynab ay ka dhawaajisay jaamaca waa su-aasha hadda macluuma inay weydiinayso oo ahaa yacni xuquuqdii gabadha lagu soo koobo yacni cid bay u shaqeynaya cid bay ka yeelaysaa laakiin karaamadii iyo sharafkii haweenka ay lahayd laguma siin arrintaas arrin hadda maalin bedeli karta ma aha
arrin dowladda hal maalin bedeli karta maaha waa arrin bulshadeed culimaadiinka qayb ka noqon karo haweenka qayb ka noqon karo bulshada rintaa qayb ka noqon karta in dhammaantood ummadda ay ka shaqeeyaan oo laga dhacay sababtoo ah waxaa laga yaabaa loo tahay ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa ku sheegay haweenka muhiimadda ay leeyihiin iyo guurka sidiisa marka guursado iyo cid wax ka dhexeyn kara xiriirka ay leeyihiin laakiin in gabadhii lagu soo koobo wax yaroo hanti ah oo ay noqoto haddee ciddii haddaan kursi siin lahayn ciddeeda la joogtaa haddaan ka bixinta ka imaanaysaa arrintaas arrin aan caawatan makaroonka qabsadaan kule berridaa saxayna ma ah waa arrin dhaqan ah boqolal sano soo jirtay laakiin u baahan tahay in laga shaqeeyo oo kulli aan ka shaqeeyo waqti badan la geliyo muhiimad qaas la siiyo dhinac kasoo geli karan inaan ka gelino mataqaanaa waxyaabaha lagu keeni karto yacni furfuritaankeeda anaga marka waxaan samayn karnaa barnaamijyo hadda ujeedada dadka Soomaaliyeed waxaan qabnaa social media aad dadku ku xiran yihiin waxaa laga yaabaa caawa qof kasta inuu ku jiro meelaha telefoonka isticmaali karna ku jirtaa kalkaas qaldan inaan wax ka bedelo oo qofka aan lagu qiimeynin mataqaanaa yani waxyaaba aan jirin aan quality-geeda lagu qiimeyn marka arrinta aan isleeyahay waa fududeyn karnaa anigoo kale iyo dowladda imaanaysa madaxweyne keligiisa oo qaban kara malaha laakiin prime minister iyo wasiirada ku taajeerto oo mas-uulka qadiyadda guuda waxay tahay inaan ka wada shaqeyno collective dowladda liidkeeda qaadatay imaan doonto in barnaamijka la fududeeyo oo xaqiijiyo walaashii hadalada ka dhawaajisay iyo culayska imaan karo dhibaatooyinka haweenka lagu haayo amba lagu qiimeynayo qiimeyn lagu qiimeynayo mataqaana waxyaabahan aysan munaasib u ahayn arrin social waaye inaan ka wada shaqeyno u baahannahay maaha su-aashan aan ka leexana laakiin mar labaadna wax aanan aydin la qabto waa wax borse soo socday waqti badan ku soo jirnay waqti badan nooga baahan yahay su-aalaha wariyaha ay weydiisay dhowr bay ahaayeen qodob waxaan ka bilaabaa la xiriiro qofka markii la doorto muxuu isku bedelaa allah u naxariisto cabdullahi yuusuf aan jeclahay inuu dhahay mataqaanaa kursiga ayaa waa lagu qofka ma wada oo something like that macnaha lama garanayo marka laakiin waxaan isleeyahay dhibaatada jirtaa waxay tahay siyaasadda Soomaaliya waxay si qaran ugu dhisan u samaysan taasaa marka waxay keenaysaa qofku markuu institution leeyahay dalku amba waxa leeyahay ilaa kaabayaasha dalku uu leeyahay qofka qiim ma laha qofku imaana uu baxaa wixii way soconaya anaga marka waxaan ugu dhacay mararka qaar waxaa la yidhahdaa tusaale waxaa jira la yidhahda lasoo qaato oo laho laba madaxweyne markaa tiraahdo mararka qaarkood madaxweynaha Mareykanka ka dhibaya inaa madaxweyne Soomaaliya sababtoo waxaa madaxweynaha ku qabaa the institution infrastructure u shaqeynaya caawinayo mararka qaar waxaa la yidhahdaa tusaale waxaa loo soo qaataa madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha ugu dadkasta waa qof kubaystay ee suuliga ka soo baxay isagoo qaanuun banaanka maray iyo qof marka ka soo baxay xukuumadda qofsiyo u xirto macnaha waxaa looga jeedaa haddii aad qabto kaabayaal haddii aad qabto advisors haddii aad qabto hay-adada dowliga oo shaqeyna madaxweynaha shaqada uu qabanaya waa xadidan tahay waa laga rajeyn karaa waa la gaargareyn karaa asaga shaqayaa celinaayo wuxuu doona ma samayn karo dhibaatada lagu dhacdo marka waxa ay tahay su-aal aad baalid ah waaye oo waqti la geliyo u baahan waxaa lagu dhacdo waxay qofku markuu dalka madaxweyne ka noqdo wuxuu noqonayaa hanti iyo property qof leeyahay qof baa keensaday koox baa keensatay isaga meesha ku haysanayo waxaa abuurmaysa isagoo marka wuxuu kusoo koobmayaa fikirka dadka ay wataan marka bishikii uu doonaa dhuma amba labo waxaa jiro institution kaabayaasha ah madaxweynaha uu soo tahay tusaale ka soo qaban xafiiska prime minister oo shaqadiisa ay tahay 3 shay moodis shirka gudoomiye